laba warbixin oo cajiib ayaan doonayaa inaan kula wadaago wax yar aad dhageysatid biidni illaahi waqti yarna aad isiisid. Warbixinta koowaad waa warbixintan. boqortooyada Sacuudiga war ka soo baxay ayaa lagu sheegay magaalada Riyaad ee magaalada madaxda dalkaas Saudi Arabia in markaas ay maanjuuriyaha halista ee khamriga uusan mar dambe mamnuuc ka noqon doonin meel walbana lagu iibin doono. warbixintan waa warbixin rasmi ah way dowladda Saudi Arabia soo saartay ay dhahayso caasimada waa lagu iibin karaa dambina kama aha waxaana laga iibinayaa dadka ajaanibta ah gaalada soo booqanayso wadanka ama safaaradaha ku leh xafiisyada ku leh shaqada inta badan ka furtay oo kale dadka baa laga iibinayaa. warbixinta labaad waxa weeye Imaaraadka BBC da ayaa soo saartay arin documenti ah dalka Yemen waxyaabihii ka dhacay oo Imaaraadka inta badan ay ka dambayso dhaqaalahana iyada ay bixinayso kooxo calooshood u shaqaystayaal oo cadaan ah oo inta badan ka imaaday Mareykanka ay ku beeratay isla dalka Yemen haddana ay ku leyso markaas mid kasta u aragto inuu ka soo horjeedo xagga siyaasadda iyo xagga diinta qolooyinka aqwaa muslimiinka ahay Imaaraadka sida ay u shaqaystaan wax badan baad fahmaysaa haddii aad soo daawato warbixinta laga sameeyay ama magaranaysa documentigaas laga sameeyay BBC da soo deysay. boqorkan Imaaraadka runaantii dadka qaar wax u maleeyaan boqor iska caadi u maleeyaan laakiin waa boqor fantastic ah xagga aqliga runaantii uu ka wada sareeyo baan dhihi karaa aniga madaxda kale tooda islaamku uu ka sareeyo ma aha dhanka wanaaga ma aha ha ka fiirin dhanka wanaaga madaxweyne aqli badan oo ma sha Allah dadkiisa diintiisa iyo dawladdiisa imaamay waxa ka fiirsaa oo kaliya dhan kasto oo qiyaano ah oo munaafiqnimo ah oo xumaan ah dantiisa haduu ka dhex arko meeshii uu ka dhex arko sida uu la soo dhex baxayo sida uu uga shaqeysanayo waa nin runaantii ka wada sareeyay madaxda kale tood waa aamusan yahay hadalkiisa oo badan ma maqleysid haddana shaqadiisa uu qabsanaya dantiisa meeshii uu ku jirto unbuu abaaraya marka wuxuu la shaqeysanayaa aqoon muslimiin marka hore wuxuu la shaqeysanayaa munaafiqiinta kale tood oo saxafiyiinta iyo aqoon-yahanada marka hore siyaasiyiinta la shaqeysanaya marka hore gaalada la shaqeysanaya marka hore ma garanaysa yuhuud la shaqeysanaya dhan kasta uu yaqaanaa maslaxadiisa sida uu la soo bixi lahaa iyo sida uu shaqeysan lahaa uu yaqaanaa. hadda dalkeena markaad u fiirsato sidoo saaxiib u leeyahay Imaaraadka madaxweynaha Imaaraadka saaxiib yihiin Axmed Madow Imaaraadka saaxiib yihiin dani Imaaraadka saaxiib yihiin haddana Axmed Madow iyo dani isma arki karaan haddana dani iyo madaxweynaha isma arki karaysa saddexdoodana markay Imaaraadka tagaan saddex kursi waa loo dhigaa Imaaraadka wada sheekeeyo garanaysa mid kastaba dhaqaalihiisa siiya mana doonayo waliba Imaaraadka saddexdood inay heshiiyaan ma doonayo mid kasta wuxuu doonayaa goonidiisa inuu la shaqeysto ula socdo ma doonayaa si daniis uu uga fushado sidoo kale tood Muuse ha ka reebin Muuse bixi saasoo kale tood madaxweynaha Muuse bixi Imaaraadku isku xiran yihiin ama Imaaraadku wax isku xiran Ethiopia isku xiran mid kastaba gooniba u wataa marka ninkan Imaaraadka hadda dalkeena madax jabiskii ka dhici jiray oo kale tood hebel baa la dilay cidii lama yaqaan hebel baa la dilay waa la daba taagan yahay qofkii dilay waa la soo baarayaa dilkii madax jabiska ahay oo inta badan aan dheheen shabaab baa ka dambeysaan dheheen kaligood ma hada fiidiyogan soo fiirsato waxa ogaanaysaa kaligood inaysan arinka aqoonin oo la yaqaano ma garanaysa dawlado badan ay arinkan la yaqaano qaasatan Imaaraadka oo kale aad u taqaana bal soo fiiri ma garanaysa Liibiya soo fiiri meelaha ay haystaan oo meelaha ugu dilka badan way Yemen meeshii Imaaraadka haysato waa meeshii ugu dilka badan way ma garanaysa Masar madaxweynahooda ayagaaba keensaday ninka ugu dilka badan weey sidoo kale Suudaan meesha ay haystaan meesha ugu dilka badan weey xagee ku hartatalo wadamada islaamka meesha ay haystaan ciidan bay ku beeranayaan meesha ugu dilka badan ayay noqonaysaa marka meesha ay haystaan ayaga. laba warbixin oo cajiib ayaan doonayaa inaan kula wadaago wax yar aad dhageysatid biidni illaahi waqti yarna aad isiisid. warbixinta koowaad waa warbixintan. boqortooyada Sacuudiga war ka soo baxay ayaa lagu sheegay magaalada Riyaad ee magaalada madaxda dalkaas Saudi Arabia in markaas ay maanjuuriyaha halista ee khamriga uusan mar dambe mamnuuc ka noqon doonin meel walbana lagu iibin doono. warbixintan waa warbixin rasmi ah way dowladda Saudi Arabia soo saartay ay dhahayso caasimada waa lagu iibin karaa dambina kama aha waxaana laga iibinayaa dadka ajaanibta ah gaalada soo booqanayso wadanka ama safaaradaha ku leh xafiisyada ku leh shaqada inta badan ka furtay oo kale dadka baa laga iibinayaa. warbixinta labaad waxa weeye Imaaraadka BBC da ayaa soo saartay arin documenti ah dalka Yemen waxyaabihii ka dhacay oo Imaaraadka inta badan ay ka dambayso dhaqaalahana iyada ay bixinayso kooxo calooshood u shaqaystayaal oo cadaan ah oo inta badan ka imaaday Mareykanka
ay ku beeratay isla dalka Yemen haddana ay ku leyso markaas mid kasta u aragto inuu kasoo horjeedo xagga siyaasadda iyo xagga diinta qolooyinka aqwaa muslimiinka ahay yacni imaaraadka sida ay u shaqaystaan wax badan baad fahmaysaa haddii aad soo daawato warbixinta laga sameeyey ama ma garanaysa documentigaas laga sameeyey BBC da soo deysay boqorkan imaaraadka run ahaantii dadka qaar waxay u maleeyaan boqor iska caadi u maleeyaan laakiin waa boqor fantastic ah xagga caqliga run ahaantii uu ka wada sareeya baan dhihi karaa aniga madaxda kale todo islaamka uu ka sareeya ma aha dhanka wanaaga ma aha ha ka fiirinin dhanka wanaaga yani madaxweyne caqli badan oo maasha Allah dadkiisa iyo diintiisa iyo dowladdiisa iyo maymame waxa ka fiirsaa oo kaliya dhan kasta oo khiyaano ah oo munaafiqnimo ah oo xumaan ah yani dantiisa hadduu ka dhex arko meeshii uu ka dhex arko sida uu la soo dhex baxayo sida uu uga shaqaysanayo waa nin runtii ka wada sareeyay madaxda kale tood uu aamusan yahay hadalkiisa badan oo maqleysid haddana shaqadiisa uu qabsanaya dantiisa meeshii uu ku jirto unbuu abaaraya marka wuxuu la shaqaysanayaa aqoon muslimiin marka hore wuxuu la shaqaysanayaa munaafiqiinta kale tood oo saxafiyiinta iyo aqoon-yahanada marka hore siyaasiyiinta la shaqaysanaya marka hore gaalada la shaqaysanaya marka hore magaranaysa yuhuudda la shaqaysanaya dhan kasta uu yaqaanaa maslaxadiisa sida uu la soo bixi lahaa iyo sida uu u shaqaysan lahaa uu yaqaanaa hadda dalkeena markaad u fiirsato sidoo saaxiib u leeyahay imaaraadka madaxweynaha imaaraadka saaxiib yihiin Axmed Madow imaaraadka saaxiib yihiin Dani imaaraadka saaxiib yihiin haddana Axmed Madow iyo Dani isma arki karaan haddana Dani iyo madaxweynaha isma arki karanaysa saddexdoodana markay imaaraadka tagaan saddex kursi baa loo dhigaa imaaraadka wada sheekeeyo garanaysa mid kastaba dhaqaalihiisa oo siiya mana doonaya waliba imaaraadka saddexdooda inay heshiiyaan ma doonayo mid kasta wuxuu doonayaa goonidiisa inuu la shaqaysto ula socdo ma doonaya si daniis uu uga fushado sidoo kale tood Muuse ha ka reebin Muuse bixi saasoo kale tood madaxweynaha Muuse bixi imaaraadku isku xiran yihiin ama imaaraadkii wax isku xiran Ethiopia isku xiran mid kastaba gooniba u wataa marka ninkan imaaraadka hadda dalkeena madax jabiskii ka dhici jiray oo kale tood hebel baa la dilay cidii lama yaqaan hebel baa la dilay waa la daba taagan yahay qofkii dilay waa la soo baarayaa يعني دلكي مدح جبس كأهاي أو أنت بدن عندهني شباب بقى دم عندهني كلي ود ما هذا فيديو كان صوفي رصوت وحوغاني سا كلي وديني سن أرين كأقونني ولا لا يقانو ما قرن سا دولة ذا بدن أي أرين كانوا لا يقانو خاصة إمارات كوكلته أب وتقانا بل صوفيري ما قرن سا ليبي صوفيري meelaha ay haystaan oo meelaha ugu dilka badan weey Yemen meeshii imaaraadka haysato waa meeshii ugu dilka badan weey ma garanaysaa Masar madaxweynahooda ayagaaba keensaday ninka ugu dilka badan weey sidoo kale Suudaan meesha ay haystaan meeshii ugu dilka badan weey xagee ku hartatalo wadamada islaamka meesha ay haystaan ciidan bay ku beeranayaan meeshii ugu dilka badan ayay noqonaysaa marka meesha ay haystaan ayaga